ugu horeyntii inta aanan bilaabin ka hadalka mawduuceena sayniska iyo mucjisooyinka quraanka waxaan doonaynaa in aan ku weydiino su'aal maxaad ka aaminsan tahay culayska daruuraha haddii aadan aqoonin culayska daruuraha ma qiyaasi kartaa maxay kula tahay culayska daruuraha si kale aan kugu dhigo su'aasha daruuraha ma culus yihiin mise waa khafiif dabcan waxaad ku jawaabi doontaa waa kuwa aad khafiif u ah saynisyahano badan oo dunida ku nool ayaa isku dayay nidaamka ay u shaqeeyaan daruuraha inay wax ka ogaadaan inkastoo dhibaato badan ay ka mareen sida ay ku heli lahaayeen cilmiga alle saynisyahanada ayaa sidaasi oo kale wax ay sheegayaan in daruuraha gabi ahaanba ay culus yihiin laakiin si gaar ah ay ugu daran tahay kolka daruuraha roob ay soo sidaan ama daruuraha ay midabkooda uu noqdo dameeri waa madow xigeen luqadda qalaadna waxaa lagu yiraahdaa gray inkastoo cilmiga alla weyne uu yahay mid aan la gaari karin oo aad u baaxad weyn haddana saynisyahanada waxay sheegayaan inay ku guulaysteen 1437 sano ka hor ayuu alla weyne wuxuu u soo dejiyey quraankani waxaana ku jira cilmi gaar ah oo ka hadlaya sida daruuraha ay u shaqeeyaan iyo kolka ay culayska yihiin waxaa si fahmi kara qofkii mug u yeesha aqoonta alla weyne uu ugu deeqay adoomadiisa muslimiinta ah oo kaliya wuxuuna yiri alla weyne وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وإساق alla weyne kan dira dabaylaha ceelaaliyo ahaan bishaarooyinkiisa wanaagsan oo ka horeeya raxmadiisa roobkiisa jeer markii ay qaadeen daruuro culus waxaan u kaxaynaa ayadaasi daruuraha ah xagga dhul dhintay markaasi waxaan sababnaa in uu korkeeda ka da'o roob dabadeedna waxaan ku soo saarnaa roobkaasi nooc waliba oo miro ah sidaasi oo kale baan u soo saari doonaa meeytida bal inaad xasuusataan ama aad ku waantoodaan sidaasi oo kale alla weyne wuxuu leeyahay onkadka iyo hilaaca dhacaya xilli roobaadka waa ammaan ay amaanayaan deeqsiilaha ugu deeqsisan dunida oo idil waa alle subxaanahu wa tacaala waxay dadka ku wargeliyaan oo ugu bishaareeyaan in ay soo dhowdahay bishaaradii alle oo ugu deeqay adoomadiisa aan kugu daree oo maskaxdaada ku hay hilaaca iyo onkadka daran ee roobka iyo daruuraha ay sidaan waxay awood u leeyihiin inay ummadan dhulka la simaan waana tan aayadda uu alla weyne kaga hadlayo arintaasi هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال waa isaga alla weyne kan idin tusiya hilaaca cabsigelin ahaan socotada iyo rajagelin ahaan kuwa sugaya roobka waana isaga kan keena ama curiya daruuraha ku culaabsan biyaha onkodkuna wuxuu hufaa u amaanaa isaga alla weyne sidaasi oo kale bay falaan malaa'igta weyneyn iyo ka heebaysi alla darteed wuxuuna soo diraa hanqarka ama biriqda oo ku dhuftaa ciddii uu doono sida oo ay tahayna iyagu gaaladu waxay ka doodaan arrimaha alle isaguna alle waa uu weyn yahay xoog ahaanna u daran yahay iyo ciqaab ahaanba haddaba sidaad aragto daruuraha ma ahan kuwa fudud gaar ahaan xilliga roobka ay culaaban yihiin waa kuwa aad ugu daran culayskooda sidaasi oo kale waxaa lagu wargeliyey saynisyahanada waxa ay dhowaantani heleen in 1437 sano ka hor
quraanka alla weyne ay ku xusan yihiin waxayna la noqotay la yaab iyo amakaag.